إلا والله بارمان كمرته إلا شرعي الدستور كلامره إلا أن تدسكشن لقى سمية قلها وسيرة بالدسكشن لقى سمية ما كده صوماليا وحاسكن صومالينا مدحوينها ما كان فيك هاي وتقولها يا بريتيشن وي سياسي واي مدحوينها برايم مينستر كان سياسي لكن هذه الصوماليات يجي مسؤول كما هي وجيان إنسان ورجال إثيوبيا في صوماليا وحشيش اللي هذا وقد حين كرمالهم سبب هذا هو نعاوننا صوماليا عاوننا ما دين كرمالنا عاونيان because we don't أيام ما بنتي دجالة إثيوبيا صوماليا تقاعد يدك صوماليا وإثيوبيا أتوقعنا وقت سمعوا لهم سيستم المرض ولده وإن شرعي محاولة هالنظام لومرا شرعي كمان في المرايانا مدحوينه ويسكت يكره ويكره أوكي واتي على ثقة كل جزء لأنه كان في الصومالية بواي مدحوينها مدحوينه وياي برشلونة الصومالية وإن أحكي لك على برشلونة الصومالية وإن ديسكشن لك سمية وإن وحي الصومال أو كل شيء على سمية تكبر إن شاء الله حد يسكت أو الله صار وضع كإمارات كلام صار كإلي تكبر تمشي haddana maanta inay dhacdo nidaam qaarka u dhacdaan ka procedure ahaan waa qaldan tahay absolutely oo jiraan waaya marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo heshiiskan waxa moodaa inuu daba joogo heshiisyo kale oo hore loo gaaray inkastoo qodobo cusub ay ku jiraan haddii Ethiopia iyo Soomaaliya ay ku heshiinayaan in la hormariyo dekadaha qaar badan oo la isticmaalo dekadaha baa jiray maxaa dhiba waa maxay waxa khasaaraha ama dhibaato laga filan karo dhinaca dhibaatada khasaaro waxa laga filan karaa waxay tahay horta hore dekadaha horumarinta Soomaaliya wadanka askari Soomaali ma laha waxa la rabaa Soomaalida dekada markii la dhahayo horumarin la sameeyay dekada Ethiopia ku soo gudbana aniga Ethiopia wax oo negotiation aan sameyn karno ma laha dekada Soomaaliya hadii la hormarsanay Soomaali waxa jirta milyaneer ah lacag leh sida hormuud iyo Somtel yaale yarad badan oo business people ah jiro oo horumarsan kara ma ahane anaga in heshiis noola gaaro oo la yiraahdo okay waa la idin jaaray madaxweynihiina saxiixay ma aha waxa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed in ay ka hadlaan looyiriinta waa in ay ka hadlaan dadka sharciyaqaanka maxaa ka gal Ethiopia xadudada Soomaaliya dekadaha Soomaaliya in la siiyo maxaa ka galay sharciga u ogolaanaya Ethiopia ma iska laha wadankan Soomaaliya iska leh Soomaalida ma ogoshahay waxay waa doctor markii hore Ethiopia dawlad goboleedyada la macaamili jirtay hadii dawladii dhexe intay ugu timaado xaruntii dalka ee madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho ay leedahay wax noo ogolaado dekadihiini aan kala faa'iidno oo aan idin hormarino si ku meel gaar ahna labada wadan uga shaqeeyaan dhinaca dhaqaalaha Soomaaliya dambe ku qabtaa Ethiopia dambe ku qabtaa in la isku danaysto in adduunyadu dambe ka jirtay walaalo ma ahan ina arin aan kugu diidanahay inay tahay waxa loo baahan yahay horta hore adduunka sharciga shaqeeyo ma ahane wax aan sharci lahayn ma shaqeeyo qofka bini'aadamka waxa hogaamiye waa sharci aan isku danaysan aan kugu danaysto aan idin hormarino dekadihiina markii la dhahayo horta maamul goboleedaha usoo noqonayna madaxweynayaasha Soomaaliya sideeda hore waxa ay qaateen qaldan sideeda sistemka la qaato sistemka la dhao federalism macnaheedu waxay wataa dadka la qoomiya dadka duwan dadka la nooca Soomaaliya markuu hore jabku hore ku dhaca waxa waaye in la maamul goboleedii madaxweynayaal wada sameeysta taasa ku qalad ah haddana waxa qalad isii daro waxay tahay maanta horumarin oo isku danaysanayna Soomaaliya Soomaaliya ma laha warshado ma laha wax soo saaro Soomaaliya waxa uu imaada badankood adduunka ugu imaada wala soo dhoofiya warshado dadka ma qabno warshado maacuunta ma qabno warshado maxaa dhaha baabuurta ma qabno warshado diyaaradaha ma qabno meel kasta Soomaaliya aqabadkeeda oo qabateynteeda ka Maxamuud Nuur ee hasiga dhigaysa qeybiga dambe barnaamijka ayaa soo